Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa walaalkiina Maxamed Sheekh. YouTube-ka daawanaysaana waa iftiinka dhalinyarada. Fadlan subscribe saar haddii ay tahay markaagii kugu horeysay oo aad soo booqato kanaalka. Gambaleelkana furo si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya. Muuqaalkana like saar lana wadaag asxaabtaada. Mahadsanid. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkan muuqaalkii ka horeeyay waxaynu ku baranay ama aynu ku fahanay abtiriska ama nasabka rasuulka sallallahu calayhi wasallam oo dhammaystiran. Muuqaalkanna wuxuu la xiriiraa isla kaa oo waa barashada nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waxaana usoo diyaariyey ama waxyaabaha aynu ku baranayno waxaa ka mid ah goormuu nebigu dhashay sallallahu calayhi wasallam. Waa kuma nebiga hooyadiis naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Halkee baa lagu dhalay suubanaha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Qoladee buu ka dhashay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeele. Abtiriska rasuulka xagee buu galaa. Yaa kafaalo qaaday nebiga markuu aabihii geeriyooday kadib. Sheeg magaca haweenka nuujiyey nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Marka nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee hooyadiis la oofsaday muxuu ka shaqaynayay. Safarkiisii ugu horeeyay markuu raacay adeerkiis Abudaalib imise jir buu ahaa. Magaca raahibka gartay khaatimun nubuwah nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isagoo yar. Ee ku soo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan. Goorma ama taariikhdee ayuu dhashay nebigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Nebigeena taariikhdee ayuu dhashay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa allaha yeele. Maalin Isniin ah 12 Rabiicul Awwal ayuu dhashay. Anagana waxaan u naqaanaa Mawlid. Bisha Mawlid ayaan u naqaanaa. Nebiga wuxuu dhashay 12 Rabiicul Awwal oo Mawlid ah ama Rabiicul Awwal. Sheeg magaca hooyada rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waxaad sheegtaa magaca hooyada waa Aamina binti Wahab. Waa Aamina binti Wahab. Halkee baa lagu dhalay suubanaha naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Suubanaha halkee baa lagu dhalay. Waxaa lagu dhalay Makka al-Mukarrama. Qoladee buu ka dhashay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Nebiga qoladee buu ka dhashay naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Wuxuu ka dhashay Quraysh oo reer Cadnaan ah. Nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Wuxuu ka dhashay Quraysh oo reer Cadnaan ah. Abtiriska nebiga xagee buu galaa. Abtiriska nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee xagee buu galaa. Wuxuu galaa Nebi Ismaaciil. Wuxuu galaa Nebi Ismaaciil oo ah wiilka Nebi Ibraahim calayhi salaam. Abtiriska nebiga wuxuu galaa Nebi Ismaaciil oo ah wiilka Nebi Ibraahim calayhi salaam. Nebiga asagoo uurka lagu sido ayuu aabihii geeriyooday. Haddaba yaa kafaalo qaaday. Yaa kafaalo qaaday nebiga. Waxaa kafaalo qaaday awowgiis Cabdulmudalib. Waxaa kafaalo qaaday awowgiis Cabdulmudalib. Sheeg magaca haweenka nuujiyey rasuulka sallallahu calayhi wasallam. Sheeg magaca haweenka nuujiyey rasuulka. Waa Thuwayba iyo Xaliimatu Sacdiya. Waa Thuwayba iyo Xaliimatu Sacdiya. Suubanaha sallallahu calayhi wasallam wuxuu ka shaqeeyay kadib markay hooyadiis dhimatay. Hooyadiis markay dhimatay kadib muxuu ka shaqeeyay. Ari raac ayuu ka shaqaynayay. Wuxuu ahaa ari raac raacil ghanam. Da'diisu imisay ahayd safarkiisii ugu horeeyay markuu u raacay adeerkiis Abudaalib dhulkaas Shaam ee dhanka iyo Qudus. Qudus markuu adeerkiis u raacay imise jir buu ahaa. Wuxuu ahaa da'diisu waxay ahayd 12 sano. 12 sano jir ayuu ahaa nebiga. Waa maxay magaca raahibka ama waa maxay magaca arkay ama gartay khaatimun nubuwah nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee isagoo yar. Wuxuu ahaa Buxayraa. aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. Wixii talo iyo tusaale ah dhanka hoose ee faalooyinka inoogu reeb. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.